maxaa sababay in Kanada ay dalkeeda ka tarxiisho dad Soomaali ah? Waxaa soo badanaya tirada Soomaalida dowladda Kanada ay sheegtay inay dalkeeda ka musaafirinayso sababo la xiriira xagga sharciga. Qaar ka mid ah Soomaalidaas oo lagu eedeeyay inay qarinayaan aqoonsiga wadamo kale sida Kenya iyo wadamo Afrika ka mid ah oo ay haystaan. Waxaana hadda dowladdu sheegtay inay celinayso oo ay ku celinayso dalkooda halka kuwo kale ay go'aan sugayaal yihiin. Qaar ka mid ah dadkii ay go'aamisay dowladda Kanada in dalka dib loogu celiyo ayaa haatan sugaya go'aankii kama dambaysta ahaa. Waxa ay dowladdu tallaabadaasi ugu laabatay markii Soomaalidu ay sameeyeen isu soo baxyo ay uga soo horjeedo in dalkaas aan loogu celin dalkooda dib loogu celin sida Soomaaliya iyo wadamada kale ee Afrika ku yaala ama wadamada kale Carabaha iyo ku yaala. Laga bilaabo sanadkii 2015 waxaa soo badanayay tirada Soomaalida ah ee laga musaafurinayo Kanada. Tirada Soomaalida laga soo tarxiilay Kanada ayaa sanadkii 2021 gaartay 61 qof halka sanadkan ay gaartay 77 qof. Markii dalka Soomaaliya uu burburay waxaa qaxooti ku noqday dibadda kumanaan kun oo Soomaali ah. Dalalkaas Soomaalida u firxatayna waxaa ka mid ah Kanada. Magaalooyin dhowr ah oo wadankaas ka mid ah ayay degeen. Magaalada ugu badan oo ay Soomaalidu ku degeenna oo Kanada ku taala waxaa lagu sheegay inay tahay magaalada la dhaho Toronto. Hase yeeshee waxay sidoo kale degan yihiin Ottawa iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka Kanada. Haddaba maxaa keenay in Soomaali badan laga tarxiilo Kanada? Maxamed Doole oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo in ka badan 25 sano ka howlgalayay magaalada Toronto ee gobolka Ontario ayaa BBC-da u sheegay in qofka Soomaaliga ah ee lagu helo baasaboor dal kale oo nabad ah isla markaana uu ku andacoonayo in Soomaaliya uu ka yimid uu wajihi karo musaafiriin maadaama la xaqiijiyay in sharci dal kale oo Soomaaliya ahayn uu ku soo galay Kanada. Qaxootiga Soomaalida ah ee loo diiday sharciga ama laga cestay waxyaabo badan ayaa keeni kara. Waxaa dhici kara in qofku uu baasaboor Kenya ku soo galay uuna sheegtay inuu yahay qaxooti Soomaaliyeed. Dad baa sidaas sharciga ku qaatay kadib baaritaan dheer lagu soo ogaaday in qofkaas uu haysto sharci Kenya. Qofka qaxootinimada uu sheegayo mid sax ah ma yahay mar haddii uu raadka been soo galo wax kasta been ayay noqonayaan. Marka la soo ogaado sharciga ayaa lagala noqdaa been baa noo sheegtay baana lagu yiraahdaa qofkaas lagala noqdo baasaboor kale oo dal nabadeed jooga. Sidoo kale waxaa jira Soomaali soo gashay Kanada oo lagu helay inay haystaan sharciyada Yurub kadib markii ay sheegeen inay qaxooti yihiin isla markaana ay doonayaan inay magangelyo ay siiso dowladda Kanada. Mararka qaar waxaa dhacda qofka Mareykanka soo maray ama Mareykanka deganaa oo sharciga loo diiday Kanada marka uu soo galayo hadduu sheegin sharciga haddii la siiyay waa lagala noqonayaa. Qofka Mareykanka soo mara ama Yurub soo mara oo Kanada iska dhiiba waxaa lagu oranayaa waxaad soo martay wadan sharci leh oo qaxootiga qaata oo ammaan ah ayuu yiri garyaqaan Maxamed Doole oo BBC-da warkaas u sheegay. Garyaqaanku wuxuu qabaa in shuruucda caalamiga ah ay ka soo horjeedo in qof loo musaafiriyo dal aan amni ahayn maadaama qof Soomaali ah oo la aqoonsaday qaxooti ama inuu dambi weyn ku galay Kanada mooyee qofka badanaa Soomaaliya looma dhoofiyo.